90% content creators ka ku nool adduunkan dhammaantood waxay sameeyaan halkan galad anna waxaan ka mid noqday 90kaas because of bilihii la soo dhaafay waxaa YouTube-kayga soo dhigay ku dhawaad 40 videos oo ku saabsan YouTube growth laakiin dhammaantooda retention-kooda hoos buu usii dhacayay marba marka ka dambeyso. Hadda fiiri midkan garaafkiisa hoogaa waa uu toosan yahay laakiin haddii uu isla markiiba halkan soo aadi lahaa waxaa dhihi lahayn hugayga waaye laakiin hadda dhibaatadeedu waxaa waaye bad ending waaye. Hadda fiiri midkan kii hore waa uu ka yahay because of kii hore garaafkiisa halkan uu aaday laakiin kan isla markiiba 18 minute-ka ugu horeeyo videogii waa uu soo dhacay kan waxaa dhihi karnaa hugiisa waa uu fiican yahay hoogaa laakiin deliverygiisa huma. So how do we solve this problem? Hadda dhibkaygu waxaa waaye sikmada ugu horeeyo videoga inaan videoga ku bilaaway si slowly ah laakiin taas looma baahno waxa ka qiimo badanna ma laha sikmada ugu horeeyo videogaaga inaa hug iska saado problemka si toos ah u dhax gasho laakiin dadkeena inta badan waxay sameeyaan inay video ku bilaabaan assalaamu calaykum ama welcome back waxyaabahaas oo kale call to action-ka videogana ay dhigaan bilowga videoga dadka badankooda videoga bilowgiisa waxay ka dhigaan inay qaataan neef dheer sida ustaadkan oo kale 5 maalin oo kaliya ay waxaan kugu bari doonaa halkii laga rabay inay si toos ah u dhax galaan problemka for example haddii aad ka mid tahay dadka daawado MrBeast videoskiisa isla markiiba waxa uu ku tusiyaa goolka uu u socdo waxa videoga aad ku dhax arki doonto isla markiiba videoga si toos ah u dhax gala weligaa ma aragtay MrBeast oo ku dhahayo soo dhow ama magaciisa sheegayo ama sidoo kale bilowga videogiisa isagoo neef qaadanayo farsamada kale ee viewerska lagu haysan karo waxaa ka mid ah inaad cutting samayso ama camera angleska aad ku dadaasho for example haddii aad hal meel fadhiso shanta ilbiriqsi ugu horeeya aana isbedel samaynin viewerska maskaxdooda way aajistaa ama skip bay sameeyaan laakiin haddii aad samayso isbedel every 2 seconds ka mid ah videogaaga for example inaad samayso zoom in ama zoom out sidoo kale aad videoga ku darto b-rolls si aysan viewersku uga ajisin haddii aad intaas samayso all the best waaye farsamada kale ee aad ku hoojin karto retention graafkaaga waxaa waaye inaad isku jaangoyso thumbnailka titleka iyo videoga bilowgiisa waxaa jira waxa loo yaqaano expectation gap laakiin haddii viewerka uusan helin wixii thumbnailka kusoo arkay sikmada ugu horeeyo viewerka wuxuu kugu samayn doonaa click and back taas oo retention graafkaaga u keeni karto inuu hoos u dhaco saaxiib haddii aad xiisaynayso mawduucyadan oo kale waxaa ka codsan lahaa inaad soo subscribe garayso so waxaa ku log leenahay 1k subscribers peace.